kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub waxaynu warbixintani kaga hadli doonaa xidiga faraku-tiris ee kubadda cagta caalamka soo maray ee isku helay darajada iyagoo xidiga ah isla kooxdaasi ay ka noqdeen macallimiin. tusaale, xidig isagoo aan ka fariisan kubadda cagta kooxda uu ka tirsan yahay u noqday xidig iyo tababare. markuu doono ayuu garoonka soo geli karaa oo ciyaari karaa, markuu doono waa macallin oo maskaxda ayuu ka ciyaari karaa. Wayne Rooney, mid ka mid ah dhaqaaqii ugu la yaabka badnaa ee ka dhaca suuqa England xagaagan ayaa ahaa in ay kooxda Derby County Wayne Rooney kala soo wareegtay kooxda DC United iyagoo England ugu soo celiyay si uu u noqdo ciyaaryahan iyo tababare. inkastoo uuna ku soo biiri doonin kooxdiisa cusub ilaa January 2020, 33 jirkan ayaa kooxda DC United ku biiray June 2018 isagoo u dhaliyay 25 gool, sidoo kale caawiye ka noqday 13 kale. 46 kulan oo u ciyaaray haatan waxa uu sii joogi doonaa horyaalka Mareykanka inta ka dhiman sanadka 2019 ka hor inta uusan ku soo biirin Derby County. Wayne Rooney ayaa ogolaaday heshiis 18 bilood ah iyo 12 kale oo dooq ah. waxa uu noqon doonaa caawiye tababare Philip Koki kadib markii uu tababaraha reer horan shaqada ka bedelay Frank Lampard oo ka tagay kooxda. Rooney ayaa maray wadadii xidiga badan oo kubadda cagta magac ku leh kuwaas oo noqday xidig iyo tababare waqtigooda. waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa shakhsiyaadkaas oo iminku ka mid yahay Rooney. Kenny Dalglish, halyeyga ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah halyeyada ugu sareeya kooxda kubadda cagta ee Liverpool, waxaana loo arkaa laf-dhabartii kooxda Liverpool ee qarnigii hore. waxa uu Kenny Dalglish kooxda Reds uu ku lug lahaa muddo badan, waxa uuna macallin ka noqday kooxdan 2 jeer xilli uu labada shaqo macallinnimo iyo xidignimo uu isku ahaa. waxay ahayd intii u dhaxaysay sanadihii 1985 ilaa 1991, halka marka labaad ay ahayd fasal ciyaareedkii 2011-2012. Kenny Dalglish ayaa mid ka mid ah kuwii ugu guulaha badnaa shaqada xidignimo iyo tababarnimo, isaga oo booskaas qabtay sanadkii 1985 markaas uu Liverpool ka qabtay shaqo aad u adag, kooxdana kula guuleystay horyaalka heerka koowaad ee EPL-ka ka hor intuuna isaga fadhiisan ciyaaraha uuna si toos ah u noqon tababare. Ryan Giggs. Ryan wuxuu waqtigiisa oo dhan uu ku qaatay kooxda shayaadiinta cascas, waxaana lagu xasuusan doonaa dhacdooyin badan oo uu ka sameeyay dheesha kubadda cagta caalamka. waxa uu Man United ku sugnaa intii u dhaxaysay sanadihii 1990 ilaa 2014, waxa uuna Man United u saftay kulamo gaaraya 632 kulan, taasoo ka yeeshay xidiga labaad ee ugu safashada badan EPL-ka. halyeyga Man United ayaa sidoo kale shaqadaasi soo qabtay isagoo kooxda Man United u qabtay si ku meel gaar ahaan tababare iyo ciyaartooy, isagoo shaqada ka bedelay David Moyes isaga oo kooxda ku hogaamiyay 4 kulan, weliba ciyaaray kulankii ugu dambeeyay ee United 3-1 ugu badisay Hull City, kaasoo caawiye ka noqday gool ahaan kulankii ugu dambeeyay xirfadiisa. Vincent Kompany, mid ka mid ah halyeyadii ugu weynaa ee soo maray kooxda iminka difaacanaysa horyaalka EPL-ka ee Manchester City, isaga waa ninka reer Belgium ee Vincent Kompany, kaasoo hormuud u ahaa guulihii Sky Blue sanadihii ugu dambeeyay. Kompany ayaa ku soo biiray kooxda Manchester City sanadkii 2008, wuxuuna ka tirsanaa ilaa xagaagii hore oo furo u noqday kooxdiisa si ay ugu guuleysato horyaalka EPL-ka sanadkii labaad oo xiriir ah.
wuxuuna ka soo muuqday liiska xidigaha darajadan gaaray. kabtankii hore Manchester City ayaa ku laabtay kooxdiisa hore Anderlecht xagaagan, wuxuuna bilaaban doonaa shaqadiisa tababare iyo xidig isagoo kooxdiisa guuldaro iyo barbaro ku hogaamiyay labadii kulan ee ugu horeysay horyaalka Belgium. Ruud Gullit, halyeyga reer Holland ayaa waqti ku qaatay kooxda Chelsea, wuxuuna noqday waqti macallin iyo xidig, waxayna taariikhdu ahayd sanadkii 1996 isaga oo sii wada ama maamulay kooxda Chelsea ilaa laga gaaro sanadkii 1998 markaas uu kaga wareegay kooxda Newcastle United ee EPL ka ciyaarta, maadaama uu ka helay fursad kale oo macallin ku sii ahaan karo. haddaba haddii aynu dul marno dhammaan magacyadii liiska xidigaha kale ee tababaraha iyo ciyaartooyga soo noqday ee xogtooda iminka lahaayo, John Toshak heerkaasi ku gaaray kooxda Swansea City, wuxuu ka noqday macallin iyo xidig. Ruud Gullit sina wuxuu xidig iyo macallin u noqday kooxda Chelsea. Roberto Carlos wuxuu macallin u noqday iyo xidig kooxda Delhi Dynamos. George Weah wuxuu xidig iyo macallinba ka noqday qaranka Liberia. Gianluca Vialli oo isna macallin iyo xidig mar qura u noqday kooxda Chelsea. Kramer Sones wuxuu macallin iyo xidigba u noqday naadiga Rangers. Gennaro Gattuso sina wuxuu macallin iyo xidigba u noqday kooxda Sion. Vincent Kompany kooxda Anderlecht. Ryan Giggs kooxda Manchester United. Kenny Dalglish kooxda Liverpool. daawadayaal, waxaa intaas ku soo gabagabeen doonaa warbixintii ka hadlaysay xidigaha farkutiriska ahaa ee kubadda cagta soo mara ee isku noqday xidig iyo macallin intaba. Tan iyo warbixin intaa la ayna ku kulmi doono, sidaa iyo nabad.